kulankan maanta madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland isugu yeeray madaxdii qaranka iyo axsaabta qaranka loogana xog warramay xaaladda guud ee dalka gaar ahaan xaaladda ka taagan Sool waxa qaranku uu hogaaminayo madaxweynuhu uu wada qaatay mowqif isku mid ah oo ah in lagu taageero qaranka iyo xukuumadda iyo ciidamadaba difaacidda qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland qaranka Soomaaliland isaga ka mas'uula maamulka dalkiisa ilaalinta xuduudihiisa iyo ilaalinta xuquuqda shacbigiisa sida daraadeed mowqifka oo akhriyay madaxweynuhu wuxuu ahaa mowqifkii aanu wada qaadanay waanu taageersanahay shacbigana waxaan soo jeedinaynaa inay ammaanka dalkoodana ilaashadaan midnimadoodana ilaashadaan qarankoodana difaacaan